Assalaamu calaykum. Badanaa waxay tagaan dadka kule kanaalada YouTube-ku safarro ay u soo duubayaan una soo bandhigayaan waxay ku soo arkaan dadka ku xidhan ee daawada. Waxaana laga yaabaa inay si kadis ula kulmaan waxyaabo qariiba oo la yaab leh marka ay ku guda jiraan safarkooda. Muuqaalkeena maantana waxaan idinku soo gudbin doonaa waxyaabo la yaab leh oo si kadis ay u heleen dadkaasi YouTuberada ee sii daawo barnaamijka oo dhammaystiran. Ninkan oo lagu magacaabo Deep Diggerdan wuxuu ku leeyahay YouTube-ka kanaal uu ku soo bandhigo waxyaabo la yaab leh oo ka helay keymaha dhexdooda isagoo adeegsanaya qalabka lagu baadho macdanta. Muuqaalkan dhexdiisana wuxuu helay dhuuntii hore ee kaaraha dagaalka kaasoo la sameeyay sanadkii 1928 waxayna u ekayd in qaybtii kale ee kaaruhu ay ku aasan tahay dhulka hoostiisa. Arrinka la yaab kalena wuxuu yahay sida uu u quusay kaarahan xajmiga weyn ciidda hoosteeda iyadoo sidoo kale aan la garanayn ciidanka uu u noqonayo kaarahani ee iska lahaa. Mid ka mid ah dadka soo geliya muuqaalada YouTube ayaa wuxuu ahaa mid adeegsanaya qalabka lagu baadho macdanta xilli uu helay shoolad yar oo ah midda ku shaqaysa leedhka. Wuxuuna sii waday baadhitaankii ilaa uu helay albaab sir oo ku qarsoon dhulka hoostiisa. Mana la garanayo waxa ku jiray godkan hoostiisa sababtoo ah muu awoodin ninka muuqaalka duubayay inuu ka arko wax fiican godka hoostiisa kadib markii uu furay. Sidoo kalena wuxuu go'aansaday inaanu hoos ugu degin godka maxaa yeelay wuxuu dareemay cabsi. Wuxuu ka helay ninkan sidoo kale godka agtiisa moobil qadiimi oo ay samaysay shirkadda Nokia. Koox dhalinyaro ayaa waxay ku qaadanayeen waqti webiga agtiisa xilli ay ka dhex arkeen webiga bartamihiisa sanduuq midabkiisu cadiyay. Mid ka mid ah labadii saaxiib ayaa bilaabay inuu duubo muuqaal halka kii kalena uu soo bixiyay sanduuqii. Wuxuuna ahaa sanduuq mid ay ku wareegsan yihiin sharootooyin ama xabag. Way ka naxeen labadii saaxiib markii ay fureen sanduuqa maxaa yeelay waxay u maleeyeen inuu ku dhex jiro cunug yar oo weli naasnuuga oo la soo tuuray. Ilaa ay markii dambe garteen in waxani uu kaliya yahay boombalo manay awoodin inay ogaadaan cidda ka dambeysay ee sanduuqan iska leh. Wuxuu soo helay ninka iska leh kanaalka lagu magacaabo Aquajegar qori xilli uu ku wareegayay kaynta. Wuxuu u maleynayay ninkani bilowgii in qorigani uu yahay mid madhan laakiin wuxuu ahaa mid rasaasi ka buuxdo weliba cabaysan oo u diyaara in la rido. Si cad looma garanayo meesha uu ka yimi qorigani ma qori ugaarsi uu ninkii lahaa kaga tegay kaynta mise waa qori lagu fuliyey dembi dila oo lagu soo qariyey meeshan. Mid ka mid ah dadka adeegsada YouTube ayaa wuxuu ahaa mid quusa harooyinka si uu u soo helo waxyaabaha ku jira biyaha hoostooda oo ay kaga tegeen dadku. Wuxuuna awooday inuu helo telefoon iPhone ah. Waxay ahayd muraayadda telefoonkani mid burbursan waxayna ahayd lacagta lagu hagaajinayaa mid goynaysa oo lagu iibsan karo telefoon cusub. Sidaa darteed waxa laga yaabaa in qofkii lahaa uu ku dhex tuuray biyaha. Sidoo kalena waxa suurtagal ah in qofkii lahaa uu si badheedha u burburiyey telefoonka kadibna uu ku dhex tuuray biyaha isagoo ku dhex qarinaya telefoonka waxyaabo sir ah uu doonayay inaan laga arkin. Waxaa jira kanaalo badan oo YouTube-ka ka dhex samaysan kuwaas oo u gaaray inay ka dhex raadiyaan macdanta biyaha dhexdooda. Waxaana lagu magacaabaa hawshan ugaarsigii dahabka. Waxaana laga yaabaa in shay ay ka dhex heleen dadkani biyaha hoostooda uu noqdo mid qiimihiisu qaali yahay sida ninkan oo ka dhex helay biyaha hoostooda faraanti ama fargal dahab ah. Isagoo ninkani aad ugu farxay dahabkan uu helay haddana wuxuu go'aansaday inuu raadiyo qofkii iska lahaa intii uu isagu qaadan lahaa. Wuxuuna ku guuleystay inuu helo qofkii lahaa fargalka kaasoo sheegay inuu waayay fargalka ku dhawaad 50 sano ka hor wuuna u celiyey. Ninka iska leh kanaalka YouTube-ka ee lagu magacaabo WW2 History wuxuu helay albaab ka samaysan macdan oo ku dhex yaala kaynta. Markii uu furay albaabkii bilowgii wuxuu aaminay in godkani uu kaliya yahay meel ay maraan qasabadaha biyaha qaada. Laakiin markii uu hore u galay godkii wuxuu ogaaday in meeshan ay tahay dhufays qadiimi ah oo la adeegsanayay dagaalkii labaad ee adduunka. Isagoo godku ahaa mid madow oo cabsi leh haddana ninkani wuxuu go'aansaday inuu galo kana soo bixiyo qaar ka mid ah xasuusihii dagaalkii labaad ee adduunka. Ninkan oo lagu magacaabo Diamante wuxuu ka helay webiga guntiisa bogas madow xilli uu ku guda jiray baadhista waxyaabo la yaab leh oo ka baadhayay webiga guntiisa. Intaa kadib wuxuu furay bogaskii wuxuuna ka helay gudihiisii kiish ka samaysan balastik kaasoo gadaal laga cadeeyay in waxa kiishkan ku jiray uu ahaa dambaska qof dhintay oo la gubay. Intaa kadib wuxuu wacay ninkii booliskii si uu ugu sheego inaanu samayn wax sharciga khilaafsan. Waxayna u sheegeen askartii in arrinkan yahay mid iska caadi ah oo la sameeyo mar walba.
waxayna kula taliyeen inuu ku celiyo bogoska meesha uu ka helay, maxaa yeelay waxa laga yaabaa in sidani ay ahayd sidii uu ku sii dardaarmay qofkan dhintay. waxaan soo gaadhnay daawada dhammaadkii barnaamijka. haddii uu ku qanciyay muuqaalku like saar, subscribe na saar channelka Ogaal Cusub. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.